qulubtayda waxay ku tacalluqday macsiyada iyo xumaanta, balse markaan joogteeyay qiyaamuleylka iyo istikfaarta, Ilaahay mushkiladaas iyo xumaantaas wuu iga leexiyay oo qalbadayda wuxuu iga dhigay mid ku tacalluqdo diinta iyo khayrka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ee ku xiran channelkeena iyo dhammaan walaalaha cusub ee nagu soo biiri doono. Jazaakumullaahu khayr daawashada iyo waqtiga aad gelinaysaan. Dhammaan walaalaheena aad iyo aad u mahadsantihiin ayaan idin leeyahay. Waxaa jira walaalo badan oo naga soo codsaday duco. Waxaan ugu horeyso abaayadan gabadhan walaasheena ah waxay dalbanaysaa duco ayada iyo zoojkeeda in Ilaahay maslaxa dhex dhigo. Sababtoo ah waxay ii sheegtay in zoojkeedii uu furay waliba asaga oo bilaa macna reerkii iyo xididkii markii ay la hadleen u soo jawaabaynin una furay sabab la'aan ayadana ay jeceshahay bal in reerkaas Ilaahay maslaxa dhex dhigo u soo duceeyay asagana qulubtiisa hadduu xanuun haayo iyo hadduu cilad kala haysato haday il ama sixir iyo wax wiilkaas asiibeen Ilaahay caafimaad taama siiyo hadduu wax kale khaladaad yar u arkayna Ilaahay maslaxa uu reerkaas dhex dhigo insha Allah u soo duceeyay walaashaas aad u kurbeysneed ducan iiga codsayay dhahday walaalahaaga 40 qof ducadooda waa la ajiibaa u soo duceeyay insha Allah aamiintan u raaciya idinkana biidni raxmaan in reerkaas Ilaahay maslaxa dhex dhigo. Ilaahay dhammaan reeraha khilaafaadka iyo culaysaadka ku haysta Allah maslaxa dhex dhigo. Inta awlaad la'aan awlaad baar Allah siiyo, inta xabsiyada ku jirta Allah ka soo deey, inta deemaysan deema Allah ka gudo, inta shaqadoonka shaqo khayr qabta Allah u sahlo qof walba meel buu ka ooman yahay muraadkiisa oo maxsalayn Allah siiyo, inta qurbeysan faraj iyo farxad khayr qabta Allah siiyo biidni raxmaan. ما يريد الله خيرا يفقهه في الدين. إلهي waxaan weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu noo fududeeyo. Soo dhawaada ayaa idin leeyahay waa qisaskeenna laga arko xuska alle noocyadiisa kala duwan hab ugu badnaatee istighfaarta xooqalada suuratul baqara iyo saliga nabiga biidni raxmaan. qisadani ugu horeyso waxaana la soo wadaagaya wiil waxa uu leeyahay qulubtayda waxa ay ku xirneed ama ay jecleed macsiyada mana aan ka joogi karin oo ma awoodin inaan iska joojiyo. Markii dambe waxaan joogtay oo bilaabay ayuu dhahay qiyaamul leyl iyo istighfaar inaan sameeyo. Alxamdulillah markii aan muddo waday Ilaahay uu iga xaliyay xumaanta xaggeeda iga soo leexiyay wanaagga ayuu ii soo jeediyay. Ilaahay ayaa mahad iska leh fadligaas oo dhan waxaan ku helay istighfaarta iyo qiyaamul leylka ayuu leeyahay. kalena waxaana la soo wadaagayso gabar oo waxa ay leedahay waxaan joogteeyay istighfaarta alxamdulillah waxaan ku helay shaqo ii qalanto oo waqti yar ah aadna u fiican tahay mushaarkeeda ayaan ku helay ayay leedahay hayareysanina istighfaarta iyo shanigeeda. qisadan kalena waxaa laga arkay iyadana istighfaarta qofkani waxa uu leeyahay waxaan ka shaqeynayay wadooyinka waxaana dhacday ayuu dhahay aniga iyo ninkii maamulaha ii ahaa ama kormeeraha ii ahaa inaan isku dagaalnay oo yacni isfahmi weyne markii murankeena batay markii dambe wuxuu dhahay shaqadiisii waan iskaga tagay oo yacni wuxuu ka shaqeynayay dowladda hoose waliba qaybteeda nadaafadda iyo jidadka iyo hagaajinta marka shaqadii waan iskaga tagay ayuu dhahay waliba anuu murugaysan oo isdhahayo irsaaqadaada iyo wixii yaroo kaa soo geli jiray gacantaada ayaa ku goysay bal maad iska daysid ninkaas haddaad isku xanaaqdeen ha isaga waaba maamulahaagii hasee kaa qayqayliyay markii dambeenta wuxuu dhahay waxaan sameeyay inaan Ilaahay xaggiisa u soo noqday oo aan dhahay yaa Ilaahay ka xiwaamaya waxaan bilaabay ayuu dhahay istighfaarta markii aan wadi uun ku celceliyay ma ogi ayuu dhahay tira aan dhihi jiray laakiin afkayga waxaan hubaa uu dhahay inaan kalmad kaleento iyo maala yacni kaleento dhan iska ilaaliyo oo ku celcelin jiray astaghfirullah wa atuubu ilayhi astaghfirullah aan ku celcelinay marka muddo 3 bilood wuxuu dhahay istighfaarta aan wada alxamdulillah waxaan ka helay dhahay wasaaradda ayaaba shaqo siisay mahadaas iyo manadaas iyo galadaasna Ilaahay uu sugnaatay thumma nimcadaas oo dhan waxaan ku helay ayuu dhahay istighfaarta kan kalena waxa uu leeyahay musiibo ama azma aad u weyn ayaa igu habsatay waxaan bilaabay ayuu dhahay marka musiibadaas ay u dhacday kadib inaan istighfaarsado xilliga suxuurta ama salaada subax hal saac ka hor ah waan duceysan jiray qiyaamul leyl ayaan u kici jiray istighfaartan waa joogteen jiray maalmo yar kadib alxamdulillah Ilaahay culayskii iyo azmadii iyo kurbadii uu iga dulqaaday ayuu leeyahay qofkaani. qisadan kalena waxa ay leedahay waxaan joogteeyay istighfaarta iyo salaada witirka iyo ducada alxamdulillah Ilaahay arrimo badan iyo culaysyo badan oo haystay uu iga dulqaaday waxa uu nagu munaastay irsaaqad iyo waasacnimo alxamdulillah Ilaahay ayaa fadligaas oo dhan iska leh thumma istighfaarta ayaa galadaas iyo guushaas aan ku gaaray ayuu leeyahay. qofkana wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waxaan kuu sheegayaa qisadayda anigii istighfaartana dhex martay
waxa uu leeyahay maalintii waxaan akhrin jiray kun mar waxaan arkay sheeyaal cajiib ah noloshayda dhan waxay noqotay farxad suruur sacaado iyo horumar iyo guulo isdaba joog ah iyo barakadaasna waxaan ku helay ayuu leeyahay istighfaarta waliba waxaan u akhrin jiray ayuu dhahay siiqadan oo ah astaghfirullah alladii laa ilaaha illaa huwa alxayyul qayyuum wa atuubu ilayh tan kale waxa ay leedahay walaashay waxa ay joogtaysay istighfaarta waxa ayna ahayd gabar weyn oo waliba 30 jir ah ilaahayna waxa uu ku arsaaqay guur ayada oo 30 jir ah kadib markii ay waday muddo yar oo istighfaar ah qisaskeeni laga arkay istighfaarta halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa balse dardaarmo yar iyo faa'iidooyinka istighfaarta iyo waxtarkeeda inaan xasuusino waxaan idin dhihi lahaa iloobina istighfaarta xitaa hadduu waqtigu idinku yar yahay waxaa laga yaabaa khayr badan in idinku arsaaqo balaayooyin badan oo idinku soo socdayna in oo idinka xijaabo ayaa laga yaabaa marka istighfaarta ha yareysanina waqti xitaa daaween shaqadaada ku guda jiro ayaad afka ka sii dhigi kartaa astaghfirullah wa atuubu ilayhi allahumma inni atuubu ilayk allahumma ighfir li rabbi ighfir li ilaahu dambi dhaaf ayaa daldali kartaa adiga oo shaqadaada ku jiro quraan ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu ku leeyahay faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذا بدأ فويديت والدين بدأ فياي كدب إله وحوله أولادي يا مالك يا محيد الروبك يا حولي أنكو ضرر وبيدي مالك استنتنم عينا يسيركو صبركم يا الله سبحانه وتعالى ليه رسولك صلى الله عليه وسلم وحونه له حديث من لزم الاستغفار قفك استغفار تجوكتي جعل الله من كل هم فرجا murugo walbo ilaahay faraj ayuu uga furayaa marka insha Allah aan joogteena istighfaarta nafteena waxaan ugu dardaarmayaa khayrka iyo dhikriga ilaahay iyo xuskiisa inaan joogteeno oon xoojino biidni raxmaan aad iyo aad u mahadsantiin walaalaha khayrka jecel ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayrka iyo wanaaga iyo xaqo ilaahay nagu sugo allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala diinik allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala daacatik اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أبايداس إي ولاشاس قربيسن إي ريركاس كالإردوبي إن شاء الله ومعنا دردن أكلا dheeraaday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu isku soo celiyo dhaxdooda maslaxa dhex dhigo insha Allah walaasheenan qalbigeeda ilaahay u dajiyo biidni raxmaan adinkan u soo duceeyo insha Allah ducada ku soo kaabo ilaahay waxaan ka baryaynaa qof walba inta muraadkiisa macsaleen inuu ilaahay siiyo alladan ka duceynaysa mada Allah ka aqbalo aamiinta malaa'ikta Allah kulmiyo aan ku wada salina nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كلن كان الله كريم كلن خيرات إن شاء الله نفتينا waxaan idin kula dardaarmayaa xaq ilaahay iyo alla cabsiga markii ay musiibo kugu dhacdo kaliya ma ina ilaahay xaqiis u soo cararto markaad caafimaad qabto markaad baraaraha ku jirto markaad nimeysan tahay waa inaad ilaahay u shukrisaa waa inaad ilaahay u soo noqotaa waa inaad ilaahay u xamdisaa kaliya maaha ilaahay inaad soo xasuusto marka aad dhibaato iyo culays ku dhex jirto marka ilaahay markastaba ilaahay xuso oo xasuusta Allah naga yeelo xaq Allah nagu xoojiyo كلمتين أفكار وقدم بيسنا الله كذا كلمة التوحيد إلهي خاتمات خير أنا وديك توبة النصوحة قبل الموت على هالنصيو إلهي وحن كبر هنا قفكيني جيردين إنه سنقول منين والدكين الله نحرس سيدنا ويرين ونحرستين وكلا دم بيجينا كيوري كي دم بمديري مدوين مذا أغنى مذا أغنى بأله نودافو إلهي نودم بدافو أعماش أنت يروس سميسنينه ونكس إلهي نقبله صونك الصلاة صدقة سكذا دعاء كل الله نقبل بإذن الرحمن ولا عليه قالق إن شاء الله فيديو انت وسكوا يا مانتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه وحنقلون إذن حسوسنا إن شاء الله أنا فيديو واللايك سارتان سو ميل دير وقارو ونسي شهر قريسان ولا لها كلانتو سو خيرك وفايديستان سبسكراب وكحرو سيكو وصول هذا مرول بينتو إن شاء الله aan isku soo duceeyna meel kastoo aan joogno dhamaanteennaba kulli walaalaha ducada soo dalbanayeen ilaahay waxaan u baryaynaa in muraadkooda oon macsi lahayn ilaahay siiyo subxaanahu watacaala meesha ay ka oomayiin oo ka kurbaysan yihiin ilaahay inuu ka oontiro oo ka kurbatiro biidni raxmaan kurbadoodan farxad ugu bedelo ayaan ilaahay uga baryaynaa aamiin yaa rabbi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu